بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وهنا أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحمد سكال الله سبحانه وتعالى ما أنت قرانك جنريسو إكسكونيس نو كل شيء أنا واحد لينو الرمكوس سابسن عياري وبدأ الدنيا قبل كبنادر أوفر مايو سيدة سبتمبر مالين أحد هدي له إلى هذا وحرب أنا هالكان أقوم هذا عليه قدامها قبل كبنادر أنا الضغم مقالة مقدسة مدير الشيخ يوسف حسين جمعالة وصورة جلية انترتن كان أو قبصامه للسنة ليرهدو kubadda cagta gobolka banaadir u qaabilsan horumarka ciyaaraha dalka qaasatan kubadda cagta waxaan leenahay gudoomiye aad u maasan tahay ururkii aad dhistana shaqo fiican oo qabtay marqaatiya ka tahay dalka intiisa badan qaasatan gobolka banaadir aad looga dareemay dhaqdhaqaaqiisa waxaan rabaa inaan u mahad celiyo sidoo kale waaxda farsamada yarku qaabishan yaxay iyo tiimkiisa oo garoonka shaqo qurux badan ka qabteen oo u jeedin garoonka la dhisay markii ugu horeysay lagu qoray wax ka turjumaya ciyaaraha degmooyinka gobolka banaadir ciyaaraha dalkeena tartanka ciyaaraha degmooyinka gobolka banaadir iyo degmada balcad waxaan leenahay aad u maasantiin waaxda farsamada gobolka banaadir iyo xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed iyo wasaaradda dhammaan waxaan leenahay aad u maasantiin sida qurux badan aad wada shaqeyseen in tartankan diyaar garowgiisa oo noqdo mid aad loo xiiseeyo la jecleysto anigoo ah madaxa marketing u qaabishan ururka kubadda cagta gobolka banaadir sharaf ay tahay maanta inaan halkan ku qabto shir jaraa'id ku saabsan ciyaarahaas inay qabsoomayaan haddii la yiraahdo wax isbedel aysan jirin garoonkan oo u diyaarsan yahay in birta haddii la yiraahdo la baasto ciyaaraha kubadda cagta degmooyinka gobolka banaadir iyo degmada balcad waxaan lagu furi doonaa haddii la yiraahdo degmada Hiilwaa iyo degmada Gubadley oo koobka haysato insha Allah waxaan rajaynayaa tartankan inuu noogu bilowdo si nabada kuna dhamaado si nabad haddii la yiraahdo meediyaha ajiiba wicitaanka aan waxaan leenahay waa mahadsantihiin waa idinkaga mahad celinaa sida qurux badan aad nooga ajiibteen wicitaanka aan idin yeernay meediyaha imaanna waan dareemi karnaa ciladii farsamo iska jiro insha Allah waxaan rajaynayaa iyagoo tarkooda inay tartanka qayb ka qaataan ay qurxiyaan tartankaana waa tartankii labaad ee ugu xiisaha badan dalka Soomaaliya waxa la yiraahdaa tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka banaadir degmada balcad waxaan rajaynayaa insha Allah inay ka soo baxaan ciyaartoy anfacda qaranka Soomaaliya iyo gobolada qaasatan gobolka banaadir oo anaga aan wakiil ugu nahay ciyaaraha kubadda cagta degmooyinka gobolka banaadir waxaan mahad celinayaa ururka kubadda cagta madaxdiisa isku duuban gudoomiyaha iyo dhammaan iyo xubnaha oo shaqo qurux badan aan wada qabanay aad u mahad celinaa waxaan rabaa inaan ugu faa'iideysto shirkadaha xiiseynaya maadaama waqtiga uu nagu yar yahay inay ka faa'iideystaan marsiistan xayisiimahooda tartanka waa meesha kaliya ugu xiisaha badan isboortigana waa meesha kaliya dhaqaalaha in lagu baxsho ugu mudan ugu muhiimsan bulshada ugu badan gobolka banaadir aan isugu imaanayso tartankan waa tartan xiisiisa iyo xamaasiyiisa wata waxaan rajaynayaa shirkadaha inay ka faa'iideystaan boorarkooda iyo xayisiimahooda ay marsadaan waqtigana wuu nahayaa shirkad walba diyaar u ahna waa soo dhaweynaynaa weliba bilaa shuruudan soo dhaweynaa haddii la yiraahdo meediyaha idinkan waxaa idinka mahad celinaa sida wasan nolosha shaqaysiin wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakatuh